iyo qaranimada Soomaaliyeed waxay la tahay aniga warba iima harin oo halka diin lagu sheeg oo suugan lagu sheeg oo aftahamnimo iyo balaaqad lagu sheeg oo hees lagu sheeg waxay haray ma jiraane waxaan isleeyahay xoogaa ururi wixii meesha aad ka maqashay oo ka faa'iiday waxaan rabaa shirka inaan u sheego hadda sidaad u fadhidaan jawiga aad arkaysaan ee quruxda badan haddaan nala ilaalinayn oo amni jirin sida miyaa loo fadhi lahay soo haddii xabad buu soo dhacay kala ma carabneen dawladdu ma keentay hal ilaaliyo marka waxaan rabaa inaan ku daro intaan iska iloobin munaasabadda waxaa ka hadlay dad Soomaaliyeed oo qiimo badan waa lagu dhan yahay waa ogahay laakiin mas'uuliyiinta hadashay hal xaafad bay u badan yihiin Soomaa macnaheedu maaha inaan Soomaalida kala joogin ee waa yarta goobtana kuma yara ee inta hadashay ayaa u badan hal xaafad sababtana waa idin sheegaya xaafadda u badan oo beelweynta aan ka soo jeedo oo la aaminsan yahay inay dawladda Soomaaliyeed burburinteedii hoggaan ka ahaayeen in kastoo lagala qayb qaatay Soomaaliya ogaada waa xajisa beeshaasi waxaana daliil u ah inay xajisay oo Soomaalinimadii xasuusatay ciidda iyadoo taal ka soo qaaday waad ogtihiin dawladda Soomaaliyeed heerarkii ay soo martay tii qarankii aan burburina kadib laba xaaji oo midna la yiraahdo xaaji Cali Mahdi Maxamed midna la yiraahdo xaaji Cabdulqaasim Salaal Xasan ayaa dawladda lala dhisay Soomaaliyana dhistay waadna ogtihiin oo waa hirgeli waayeen waxa hirgelin waayena cadow kale uma iimaanay waa qaraabadooda oo beeshan ka hadlay inay xajisaan idin sheegayaa dawladdii mudane Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed sida loo soo dhaweeyay waxa xasuusta ma waxaan dhahnaa waxay ahayd wixii ka horeeyay ilmo adeersmayn buuxiyaan oo waa isyasayeen miyaan dhahnaa ma tawfiiqda ka maqneed baan dhahnaa ma qarannimadina garanayn baan dhahnaa wax kasta ha lagu fasiro laakiin in Soomaaliya bislaatay oo beelweyntaan sheegay xaajiyaal noqdeen oo wixii hore la duugay waxa u daliila dawladda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf sida loo soo dhaweeyay labadii ka horeysana loo jilaafay qarannimay astaan u tahay ku dara marka dawladda maanta hoggaanka haysa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida loogu banaan baxay habeenkii la doortay waa ogtiin jacaylkii loo qabay ma aha shakhsiyadiisa oo waa dawladnimada iyo xilka uu hayo ee ma aha waxa la jecel yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gurigiisa iska joogay ilmihiisa ee waa madaxweynenimada Soomaa waxaan rabaa marka meeshan war ku maharine inaan xoogaa iftiin bixiyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed mid walba wuxuu ku haminayaa inuu dalkan maalin hoggaanka u qabto Soomaa ya hadde inaan kubar cayaaraan rabaa isbartiibadina waa dumina garsoorayaashina waa dila shacbiga daawan lahayo lacagta laga qaadi lahayo isbartiibadina waa la laynaa xabad baan u qaadanayaa ma shaqaynaysa muwaadinkii raba inuu dalka hoggaankiisa raadsado ha ku raadsado si dimuqraadiyad ah ha suga xilka marka uu ka dego dawladda marka waqtigeedu dhamaado ee ha tartamo ee shacbiga hadduu kasbado waa la dooranayaa iimaanka la gelin leh horta waxaan rabnaa isbedelada Soomaaliya ka socda kumeelgaarkii laga baxay dawlad baa soo hogaamisay 4 sano dalkan mid labaad oo kumeelgaar aan ba hadda hoggaanka haysa qaababka doorashadu ku timid waa ogtihiin qaabka soo socda ma aha kii hore kale ogaada xisbiya lagu tartamaya xisbiya hadii lagu tartamaya marka xisbi dimuqraadiyad iyo shacbiga u raadsado kalsooni ka abuurto ayuu wax ku raadsadaaye xisbiya xabad wax ku raadinaya ma aqbalayna ya
waxaa kaloon ku darayaa aniga naftirkayga xisbigan soo wada hoggaanka dalkana inaan u tartamo rabaa doorashada soo socota laakiin waxaan rabaa dowladdan inaan inta taakulayno waqtigeeda ay ku dhammaysato sharaf oo shalay meeshay ugu timid meel ka fiican gaarsiiso ee meeshaas qofkii ka qabtaa oo ka sii fiicnaado waxa hadda jir iyo wixii la soo maray soo ma haddaan laakiin jillaafo aan idhaahdo tan dumi yay guul keenaye anna berri waa layga duminaa soo ma horta soomaali waxaan ka rabnaa inay ka waantowdo taas oo qaranka waa la wada leeyahay adeegayaasha qaranka waayo madaxdu in lala shaqeeyo horta shacbigu inuu ilaashado isagaa laga rabaa xisbiyadu waxaa rabaa inay noqdaan xisbiyo siyaasadeed xisbiyo nabadeed xisbiyo horumarineed xisbiyo bulshada u adeega ee aanay naqan kuwo bulshada moraalka ka jabiya ayaamahan waxaan maqlayay xan fara badan oo magaalada ku jirta kacdoon ha la sameeyo jidadka ha la xiro ha la gubo taayarra ha la gubo xaafadaha qaar ha la qabsado isbaarooyin ha la dhigo iyo green line iyo qad cagaaran xamar xantaasaan maqlayay maanaa waala mise waa wax jira way waa wax jira lama inkiri karo dadka waxaa ku hadaaqaya waxaa la rabaa inay ka waantoobaan haddii kale dowlad iyo shacbi isku duuban laguma aadee gurigaa loogu tegaya waxaan intaa ku darayaa soomaaliyeed hadalka ka yeera waa maqlaysa suldaan xaamud suldaan aadan suldaan xuseen magaciisu haraagay hadalka fariinta uu noo dhiibo waa maqlaysayna filaya midnimada soomaaliyeed waqooyi ka timid oo ogtiin qofkii halka ka dhahaya war ma u geynaa calanka iyaga ma u geynaa qof baa halka ka yidhi qof macno lahou ahaa marmarka qaar marka siyaasadda laga doodo waxaa la yidhaahdaa war midnimada maxay la maqan tahay waqooyigii baa diiday oo waa goosanayna xagga la taagan reer waqooyi somalilan anigu waxaan aaminsanahay in badanoo soomaaliya waxaa hor taagan midnimada soomaaliyeed koonfurta way waana idiin caddaynayaa sababta ilaah baa idinku dhaashaya qof kasta hees ka soo qaada shakhsiyaddiisa guriga kugu dheggan hadduu gubanayo holcayo ma waxaad ku darsanaysaa waxba ku darsamaysa waa ka fogaanay koonfurta waa la demin waaye dabkeeda koonfurta waa la nadiifin waaye koonfurta hadday inta nadiif noqoto kala dambayn iyo amni iyo ganacsi iyo nolol iyo soomaali jacayl lagu arko ciddaas inay imaanaysaan aaminsanahay iyadoon qofna u yeehay waagii calanka keenaya yaa u yeedhay iyagaa gartay shacbigaa soo diray shacbigii soo diray isagoo intii ka aqoon badan oo ka waay aragsan oo ka xoolo badan ayuu joogaa laakiin meel ay u diraan siyaasiyiinta ay laayihiin ogaada horta arrintaas waxaa rabaa inayna noqon kelimad meeshaan ka yeertay aan qaadno heer kasta geyno ummadda soomaaliyeed kalama maarantee midnimadu waa waxaad u heesayseen inaad ka wada shaqaysaan soomaaliya iyadoon loo kala harin sidaas ayaan ku dardaarmaya gabagabadii waa la daaho waa u jeedaa waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dalladda ururada bulshada rayidka ah ee ummaddan isu keentay inta ka shaqaysay oo dhan heer kasta ha uga shaqayso iyo maamulka hoteelkan oon asagana ognahay maalmihii hawshaan la qabanqaabinayay inuu aada uga shaqaynaya inay qabsanto xafladda ballankeennu waxaa weeye inaan ilaalino dowladda soomaaliya ciddii rabta inay jilaaftana inaan dhahno warka joog oo iimaanka allaha kuguley naga dhara hadduu naga day waayana waxaan u malaynayaa ida ashacbu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadra imaanaysa waa la yaqaanaa soo maaha shacbiga suldatu shacbiga la yidhaha awoodda shacbiga dowladda waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay dadka salaaxdo marka hore salaaxdo kareemo u mariso ciddii u malaysa in la laaluushaayana inaan la laaluushayn u sheegto hadday maqli weysana in si kale loogu sheego cid laga baryaaya nabad ma jirto dowladda soomaaliyeed meeshay ka timid halkaa laga wada sheegay anugu ku celin maayo laakiin mid baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo
عد ربطة إن دولة الصومالية كهرتكتو ما عد ثلاثة شلبة أو وحي لصومر أوجين مين قح أوجين مين بركة أوجين مين بدل القط هذا يا صحراء ضد كانوا كل من أوجين وحان هو سياسيين كشغينا يا إن أنهر الله سبحانه قدر الله نقضه وحان هو عد قدر ستي وكيل وجهه إن نجري ليش عن عذر عقدت لك قادم كمقلا يولي موشن Soomaaliya horta moosinku sharci way haduu danaha umada ka shaqeynay hadii qaranka madaxdiisu ay wixii loo diray waxaan ahayn aadaan ee dastuurka ka leexdaan ee shaqo kale iska qabsadaan oo umadu u dirin dastuurka u dirin mooshin laga keenay sharci way horta ogaad laakiin mooshin aan sharci ahayn ee lagu duminayo qarannimada Soomaaliyeed shacbiga u naxaya gabdhaha iyo hooyooyinka u naxaya meeshi laga keenay og yihiin 30 sano kadib 30 sano miya dibna loo celinaya 20 sano kadib ay timid waxa kale oo rabaa inaan idin sheego dawladnimo inayna ku iimaaneen toogmo iyo baryo iyo salax dawladnimo xoogay ku timid xamar markay iimaanayso dadka ma bariyay sidii loo bariyay 18 sano la bariyay wadida Soomaaliya 18 sano la bariyay maalintan xamar soo galayay oo habeenkan afgooyo ku hoyday anoo dhulka soo maro ka imid Baydhabo magaalada soo galin baday magaalada dawladdu soo galinay buundada afgooyay soo dhaafay buundada balcade hana la xaajood waxa dhahay Soomaali bay ahayn dawlad ma la xaajoonaysa shacab xoogay ku timid bariya kuma iman xoog baan lagu ilaalinayaa dhiigeesiyaal iyo gabdhaha ragana lagu ilaalinayaa ogaada waxaan rajaynayaa cid u malaysa dawladdu inay dulqaad badan tahay aaminsan anu waana laga rabaa dawladdu inay dulqaad leedahay laakiin markii dulqaadku bato ee loo maleeyay inay doqon yihiin madaxdu inay doqon ahayn inay muujinaan raba yaan lagu sirmin dadka hal loo aqli celiyo gudoomiye batuula halka ka sheeg wiil kasta nin kasta guriga ku soo hoyda عشان الله كرنا ilmi aabay leeyahay adeer iyo waxaas guriyahay ku soo joogan ragga dawladda inay dumiyaan ka shaqeynaya waxa halka ka maqlay war aan aad u xiiseynayo oo uu sheegay ogaas Maxamed Wali taariikh uu sheegay rag kalena waa ku celi bulshada deegaanka gogasha qaranka ee Muqdisho deganay waa la idin la hadlaa dad wax maqlaysaan waa la idin la hadlay yaalada waxay yiraahdaan shacbigu waa hadlay islaamkuna yiraahdo shacbigu waa hadlay xil gaar ah saaran caasimada iyo bulshada deegaanka ku nool waan ogahay inay wax tabanayaan ogaas Maxamed Wali xuquuq baa maqan xuquuq deegaan baa maqan Soomaa xuquuqda deegaan in Soomaalidu ogasha waa aragteen idinku diyaasada xuquuqda deegaan waa mid aan ka tagaynin xuquuqda muwaadiniinta ee caasimada u tahay magaalada xuquuqda deegaan waa mid lagu xurmeeyay dadka deegaankan loogu yimid oo gogasha noqday dulqaadkooda ayna Soomaaliya ku wada joogtaa kuna wada joogi doontaa waxaan rajaynayaa marka in arintaas hoosta laga xariiqan la fududeysan shacbiga maqla Soomaaliya waa ogoshahay deegaanka xuquuqdiisa iyo caasimada maqaamkeeda laakiin waa in laga shaqeeyo waxaan ku soo khatimayaa mudane Ali Marwe deegaanka Muqdisho caasimada Muqdisho maqaamkeedii inuu maqan yahay ee xuquuq siyaasadeed iyo matalaad siyaasadeed ayna lahayn waa ihaano iyo xuquuq ka dhunta ummadda waa ka xumahay in laga shaqay waayo dawladihii ku meel gaarada ahay looma ogoleen laakiin dawladdan tii ka horeysay ahayd inay dhaliso maqaamka Muqdisho oo dadka deegaankuna xaq leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed caasimada u taanay xaq leeyihiin dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waxaan ka rabnaa intoona dhamaan waqtigeedu inay soo saarto maqaamka caasimada iyo xuquuqda deegaanka iyo ummadda Soomaaliyeed caasimada u taanay وأبغينا وحنا هباء إنه أمسية وحنا هباء مدحوينه إنه أمسية وحنا هباء رئيس الوزراء إنه أمسية حكومة ديس لكن مالين والبا
cudurkaas sheegaysana lagu joqaynaya maba fiirin karaan shaqadii hortooda taal waxa kaloo la doonayaa sida maalin walba loo dhibayo inayna waxba qaban ee meesheeda ay ku dhamaato kuwa sidaa ku fikiraya iimaanka Allah geliyaan leenahay kuwa raba inay dalkan siyaasad u sameeyaan oo siyaasadda ka qayb galaan inay dawladda inta taageeraan waqtigeeda loo dhameeyo kadibna lala tartamo kuwa badan aaminsan oo hubahay sidaas guuleysta